hagaag ugu dambayntiina haddii heesun aad ku maqli jirtay waa duulisteennii dayaxa aynu aadno arrintaa waxaa kaga dhabeeyey nin maalqabeena oo ay u gaadhay oo reer Jabaana ninkana horta hantidiisu waa 3 bilyan oo dollar waa 3,000 oo milyan oo dollar haddii si kale loo dhigo oo aan idin jilciyo ninkan dhawaan baa waxa ay kala boodeen gabadh ay isku cindanaayeen muddo dheer oo ay wada socdeen oo 27 jir ahayd isaguna waa 44 jir lacagtaasi uu ku hodmayna badankeeda waxa uu ka helay baa la yidhi xagga dharka ama faashinka waxa loo yaqaano oo aad iyo aad lacago fara badan uga sameeyay ninkana haddaba malaha qiyaasteeda waxa uu ku xumaynayaa gabadhii ay kala hadheen waxa uu yidhi sanadka 2023 waxa aan kireysanayaa gantaal qaada hawada sare dabadeedna waxaan u baahanahay buu yidhi qof nolosha aanu wadaagno iyo lamaanahayga cusbaa ee markaasi aanu wada noolaan lahayn shuruudaha daba ku xidhan lamaanahan uu sii qaadayo ayaa waxa uu doonayaa horta in dayaxa ay isu raacaan oo ay markaasi ku soo wada wareegaan waxa uu yidhi fariin baanu hawada sare ka soo diraynaa oo waxaanu odhanaynaa jacaylkayagu waa naga dhab dee 2 sannadoodna waa waqti ku filan oo taa lagu xaqiijin karo siday la tahay waxa kaloo aanu soo sheegaynaa buu yidhi eeshcala oo hawada sare aanu labada iyaduba kaga baaqaynaa buu yidhi in adduunyada nabadgelyo iyo nabad lagu helo haddaba waxaa soo dhammi bilaash kuma imanayaan sidii shaqooyinka ilaa dee waa shaqo uu bixinayee ayaa ninkani waxa uu xayeysiiska soo raaciyey shuruudaha ku xidhan shuruuduhu waxa weeye horta in inantu ay 20 jir ka weynaato ama gabadha soo doonanaysa in hawada sare iyo dayaxa ay ninka odayga isu raacaan marka daadeedu ay 20 jir ka weynaato waxa uu yidhi waa inaanay noqon gabadh xidhxidhan oo amuumo ah ay noqotaa qof furfuran oo wejigeeda soo dhaweyn ay ka muuqato oo noloshana rajo weyn ka qabta waxa kale uu sheegay in gabadha shaqadaasi markaasi qaadanaysa ama booskaasi isaga u buuxinaysa looga baahan yahay in ay noqoto buu yidhi mid furfuran dee waanu ku darin baan u malaynayaa waa inay noqotaa malaa mid isagana si weyn u raalli gelisa haddii haddaba araajida shaqada aad maqli jirtay maalintaasay xidhmayaan kuwan qudhoodu maalin ay xidhmayaan buu ninkana sheegay waa 17 bishan aynu ku jirnay January dhowr maalmood oo kaliya ka dhiman xilliga araajidaasi ay xidhmayaan ee ninkaasi markaasi uu kala dooranayo gabdhaha faraha badan ee sidaan qiyaasayo soo dalban doona inay dayaxa u dalxiis tagaan waxaana socdaalkoodani uu noqonayaa baa la yidhi kii ugu horreeyey ee aadamo dalxiisi ay ku tagaan dayaxa oo markaasi ay ku soo wareegaan waxaan u noqonayaa baa la yidhi kii labaad marka ay noqoto in aadamuhu ay dayaxa ku wareegaan oo markii ugu dambeysay ahayd 1972 markii sidaasi la yeelay ninkani muu kala sheegin gabdhaha uu doonaya inay Jabaaniis kaliya yihiin iyo in wadamada kale hablaha ka soo jeeda hawshan ay u furan tahay waxaan u malaynayaa tafaasiishaasi weli xaqiisay ku laaban yihiin laakiin markay noqoto dayaxa lagu wareegayo dee waa ninka ay u gaadhay hantidiisu waa 3,000 oo milyan oo dollar oo waxayna shaqul ku lahayn laakiin magaaladan Hargeysa warkan aan idinka soo tabinayo iyo magaalada Burco iyo deegaamada Soomaaliland qaar fara badan oo kamida ku wareegida dayaxa intiina taqaanaa wax kala looga yaqaana kaadey naga fog iska daayay waxa looga yaqaana marka ay raggu yara qarsanayaan inay makhaayad ka dalbanayaan inay madax cunaan ayaa waxay yiraahdaan dayaxii kan markaas waxa la yaab miyaad ku wareegaysaa mise dhinacaad iska taagaysaa taasoo macnaheedu yahay ma madaxiga wada dhanbaad rabtaa mise waxaad rabtaa isagoo nusa dee markaa waa kaa kale lamaba soo hadal qaado xaggeenne kan lagu wareego ayuunbaa makhaayadaha laga dalbadaa ninkani waxaan u malaynayaa inta keliya ka dhiman inay tahay in Soomaalidu ay heesu leeyiin oo ay tan tahay waa duuristeedii